muranada dhulka kuma koobna oo keliya magaalada muqdisho. magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo iyo Dhuusamareeb waxaa sidaasi oo kale ka taagan muranada u dhaxeeya dadka isku haysta dhulka, waxaana dhibaatooyinkan sii kordhiyey dhulka oo qiimo weyn yeeshay guud ahaan Soomaaliya. meelaha qaarkood sida magaalada Kismaayo waxay xaaladdu sii murugtay kadib markii dhul ay dawladdu lahayd ay shacab degeen sanadihii la soo dhaafay, dhulkaasi oo la sii kala iibsaday gacmo kala duwanna maray. horraantii sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa maamul goboleedka Jubbaland ay ansixiyeen sharciga dhulka. waxaa sidoo kale Jubbaland ay aasaastay 2 guddi oo kala ah guddiga arrimaha dhulka iyo guddiga xallinta muranada dhulka. waxyaabaha ay soo go'aamiyeen guddiyadaasi waxaa ka mid ahaa in dadku ay dhulkooda iyo guryahooda sharciyaystaan, inkastoo haddana dhibaatadu ay ka imanayso in maamulku uusan haynin dokumenti asal ah oo loo laabto si dadka loo kala saaro. dadka rayidka ah qaarkood ayaa ku dacwoonaya in sharciyada cusub ay cadaalad ku heli waayeen, islamarkaana waxay maamulka u jeedinayaan eedayn ah in sharciyada cusub ay dadka qaar si aan cadaalad ahayn uga faa'iidaysanayaan, ayna ku boobayaan dhul aysan lahayn. waxaa kaloo dadka qaarkood ay sheegayaan in sabarloogooyinka cusub ee la bixinayo ay yihiin kuwo qaali ah oo dadka qaarkood aysan awoodin. dadka sheeganaya in weli dhulkoodii uu dhacan yahay waxaa ka mid ah gabadhan ku sugan magaalada Kismaayo oo codsatay inaan magaceeda la sheegin sababo dhinaca amnigeeda ah. aniga waxaa la iga haystaa dhulal ilaa maxaan ku iradaa 20 iyo gaarahay kow dhul, 2 unbaana ka dhisnay, 2 boos unbaa ka dhisnay, 9 iyo 10 kalena ma aysan dhisnayn. si kastaba ha ahaatee ee gurigaas hadda waa la dumiyey waana la dhistay. gurigan goormaa lagaa dumiyey, goormaa la dhistay? waxay ahayd markii guriga laga dumiyey 2014. yaa kaa dumiyey? niman ciidana waa iga qabsaday, askar ah oo qoryooley ah. sababtuna? wallaahi walaalow waxaas wax kaliya igu dhacay ma ahayn. halkee aniga kaliya shakhsiyan ii soo ataagay ama kaliya iga dhacay ma wax dhacdo ah oo ka tirtay ahayd meeshaas oo waqtigaas dhacdo socotay bay ahayd. ma dacwootay oo maamulka ma u dacwootay intaa wixii ka dambeysay? waqtiga ayada ahaa oo 2014 xilli aan dacwoon karo maysan ahayn. waxaan dacwooday 2016 baan dacwooday. haddee dhibka jira wuxuu yahay haddaad meesha dacwooto, dacwada waxay u baahan tahay maaragtay si cadaalad ahoo cadaalad ku jirto in maaragtay wax lagaaga qabto. waa gartay. markaad dacwooto waxaa kugu dhacaya wax kale oo damage ka weyn baa ku gaaraya. waxaa lagu leeyahay ciidan baa loo dirayaa guriga kasoo dumiya, hebel soo qabta, raashinkii waxaa lagaa rabaa ciidanka qadadoodii, waxaa lagaa rabaa maxaan ku dhahaa inaad lacag bixiso oo transportation oo shidaalka baabuurka shaqaynaya. waxaa lagaa rabaa maanta inaad qayl siiso nimankii, ilaa waa wax qayla wixii. marka qofku si isaga daba warwareegayo aniga shakhsiyan saan isaga daba warwareegayay at least markay $600 i gasho farahan ka qaada. marka waxaad ii sheegtaa maxaan ku idhaahdaa guddiyo arrimaha dhulka loo xil saaray baa jira, mid uu madax ka yahay Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka, guddi kale oo arrimaha khilaafaadka dhulka ayaa jira muranada saabsan, meeyarkii duqii magaalada qof uu xil saaraa jira arrimahan. midkoodna ma u tegtay, maxay ku dhaheen? walaalo waxaa la furay xafiisyo, waa sida aan sheegayso guddiyaa la magacaabay, xafiisyaa la furay. dadka ay ka dacwoodaan waraaqaa applicationa la garaacanayaa, waa la geynayaa. waan isku dayay, waan sameeyey, waan garaacanay, waan geysanay. aniga weli wax la ii xukumay ma aysan dhicinin oo markii ugu horeysay baan intaan yar ahaan jabay baanan horey ka geysanin. laakiin dadkii igu horeeyey oo hortay geysay liisku waa kala magacyo leeyahay ilaa wuxuu marayaa kumanaan buu marayaa intuu ka bilowday. marka dadkii igu horeeyey ba qaar hadda waxaa la yiri waa loo xukumay, laakiin weli ma ana arag shakhsi lagu wareejiyay hantidiisii, weli ilaa hadda ma ana arag. sida aad la socotana waxaan anaku ka baqaynaa dad badan baa jiro oo dadka shacabka waxay isu sheegayaan ama dib aan uga baqaynaa. meeshaan waxaan isu sheegnaa anaku lacag baa loo furtay oo waxaa lagu leeyahay dhulka waa lagu xukumayaaye waxaas bixiyo. markaa kadib haddana waxba lama dhamaynayo. sidaasaan anaku isu sheegnaa. marka xoogaa dibna waa isu gaabinaynaa, dacwooyinna way noo xareysan yihiin, laakiin weli shakhsi wixiisi lagu wareejaya markii aan aragno baan jecel lahay inaan ku dhiirano. Cabdicasiis Cabdulaahi Maxamed waxa uu isna ku nool yahay magaalada Kismaayo.
waxa uu ii sheegay in dhul badan oo uu ku lahaa magaalada Kismaayo oo isugu jiray kuwa uu waalidkiis ka dhaxlay iyo kuwa isagu u iibsaday aysan xilligan gacantiisa ku jirin. waxa uu u tegey guddiga xalinta muranada dhulka ee magaalada Kismaayo, waxaana uu leeyahay ilaa haatan cadaalad la iima samaynin. waayo walaal waa mahadsantahay Haruun, oo labada dhul waxay kala ahaayeen dhul sharci buu ahaa, laba boos buu ahaa. 2015 baa layga dhistay. dhul la deganaan jiray waagii nabadii buu ahaa, oo talaaladii iyo geedihii iyo guryihii cashaan ah oo burburay sagxadahoodii ay yaaleen. dhul sharci wareegsan oo diyaanateel ku wareegsan yahay. dhulka dhul sharci waa laba boos buu ahaa. xaafada Siinay buu ku yaalaa. waa dhul qadiimi oo 82 ah. dhulkaas sidaasuu ahaa. dhulna 2015 bishii 7 baa isagana layga qaatay. dhulkaas kale sharci ma ahayn, dhul wuxuu ahaa angatay oo 2003 aan gatay, oo dhulka dadku hadda u yaqaan oo basiibku ahaa. 10 boos buu ahaa. dhul aan gatay buu ahaa, iina wareegsan oo aan ku wareegsaday derbi. aas waxa loo yaqaano derbi, waxa la yiraahdaa derbiga weyn ahayn. aas ay igu wareegsanaa. ma dacwootay? waa dacwooday. waxaan u tegay degmadan tegay, waa ka dacwooday. sharcigii dhulkan la tegay, ayagii baa loo yeeray. way diideen inay yimaadaan. tirasa ka 3 jeer baan tegay. qaybta booliskaan u tegay. boolis bay igu dareen oo meeshay tageen. meel dhisan oo cida degan yihiin, boolis waxba kama qabanayo. kusoo duuduub oo dhulkaas degmana wax igama qaban, boolisna wax igama qabanin. sharcigiisii anigoo haysta baa laygu dul dhistay. sidaasaana lagu haystaa Haruun. anigana saan isaga soo dabalaaganay maxkamadda degmada iyo stationka ugu dhaxeeyay. waan iska daalay. sharcigayga in baan haystaa. sidaasaan uga sugtay. maamulka waan la hadalay, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland waan la hadalay. wuxuu yidhi guryo la kala dhaco xilligan ma jiraan. hadday jiraanna dadka dacwadaas qaba hanoo yimaadaan. waa la furdaaminaya. waxaa jira 2 guddi uu isagu madax ka yahay, madaxweyne ku-xigeenka, iyo guddi kale oo xalinta khilaafaadka dhulka, iyo guddi kale oo maxaan ku idhahdaa qaabilsan maareynta iyo maamulka dhulka. ma u tagtay guddiyadaas dhulka oo basiibka warqad aan ku gatay baan ula tagoona, warqad nootaaya aan sharci ahayn. ayagaana ii sharciyeeyey markii horeona hadda wareejinahayey. ayagaa ii sharciyeeyo waagay yimaadeen oo maxkamaduhu ka baxeen baan dhulka wareejiyey. kan hadda 10 boosa warqaday iigu sharciyeeyeen baan ula tego. degmadu ii guyso ina Madiinow iyo Tenjel Anilaya gudoomiye degmada ay ku saxiixan yihiin. wax waan ka walaalay. wax isbedelayna male. guddiga ay magacaabeen ay sheegayaan waa kuwii horeon u tegi jirnay. wax isbedelay ma jiraan. madaxweyne ku-xigeenkuna inta dhib dhacaysay wuu taagnaa. dee mindha adinka VOA mindha uu idiin sheegay wuu taagnaa inta dhib dhacaysay oo ummaddu isxaqdinaysay. madaxweyne ku-xigeen buu ahaa, ama kii ka horreeyay baa taagnaa, ama isagaa taagnaa. wuu xogogaal buu u yahay waxa meesha ka jira. dhinaca kalena maamulka Jubbaland waxay go'aansadeen in dhulkii ciidanku lahaa ee ku yaalay magaalada Kismaayo gudaheeda loo sharciyeeyo dadka degan. dhulalkaasi oo lagu magacaabo Obasiibo ayaa haddaba ah kuwa muranada ugu badan ee dhulka ay ka jiraan. guddiga arrimaha dhulka ee Jubbaland waxay iyagu ku doodayaan in sharciga cusub ee dhulka iyo tallaabooyinka ay ka qaadeen xalinta dhulkuba ay shaqaynayaan. guddigaasi waxaa madax ka ah madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, waxaana uu sheegay in shaqada guddigiisa iyo guddiga labaad ee xalinta khilaafaadka dhulkuba ay wax badan xaliyeen. Haruunow, dhulka ciidamada ay lahaayeen matalan magaalooyin xaafaduu isu bedelay. dadkii baa degay magaalooyinka. dee 30 sano oo qof walba meeshuu rabo iska dhisanayo oo xaduud lahayn. meel kasta oo xara ciidan lahayd waxay noqotay bartamaha magaalada. iskuullaa laga hirgeliyey, MCH laga hirgeliyey. dadkii baa degay, dabaqayaa laga dhistay. qof walba waa qaatay. marka intii aan ummadaas barakacin lahayn oo aan burburin lahayn oo dhihi lahayn bari bay dawladda lahaan jirtay in dadka dhulka loo nidaamiyo, loo sharciyeeyo. ciidamadina ay meelaha awalba soona militaar ama soona ciidan u qalma loo asteeyo ay dib u degaan. matalan hadda Kismaayo ka soo qaad. saldhiggii 43 bay ahaan jirtay, haddana qaybta 43 weeye. xarumaheedii oo dhan saas markay noqdeen waxaanu dejinay dhul weyn oo jaamacadda lahayd. jaamacaddina meel kaleanu geynay, ayagana halkaasaanu dejinay. marka waxa weeyaan markaanu xaaladda qiimeynay
waa suurtagal waa noqon weydin hadda la yidhaahdo dib inta loo burburiyo dadkaana loo barakaciyo ciidamadii ha loogu soo celiyo. waaye waxaa la sheegayaa inaad sabar looga cusub maamul ahaan samaynaysaan, laakiin dadka qaar waxay ku doodayaan in sabarloogooyinka cusubi dad qalad ah loo xukumayo dhul, islamarkaana dad qalad ah ay ku qaadanayaan dhul aysan lahayn, maadaama aysan jirin sabarlooyinka aad samaynaysaan aysan jirin meel aad dib ugu laabataan oo tixraac aad ka soo qaadataan ood ku ogaataan ciddii iska lahayd dhulka. haddaad ii sheegi karto hadda inaad haysataan documenti aad ku laabataan oo aad ka soo saxdaan tasdiiqisaan ciddii iska lahayd dhulka, waxaa la ii sheegay inaysan jirin. haddaan been sheegaya waad ii sheegi kartaa. horta macruufa waxa weeyaan dadka sidaa ku doodayo waxaan umalaynayaa inay yihiin dad aan jeclayn inay nidaamka ku noolaadaan, sababtoo ah dhulka sabarlooga le ani horta sabarloog cusub ma bixinayna. sabarloogii hore yaan duplicate u bedelaynaa qofka, waxaan ka dhigaynaa mid digital ah. sabarloogiisoo la imaanayaa hadday cidna ku haysanin kii baa loo cusboonaysiinayaa oo digital la gelinayaa oo qalabkan cusub oo maaragtay laiska arko oo dib dambe aan forgery loogu samayn karin ama aan loogu qabsan karin oo softwareka baan rabnaa inaan ku samayno. annaga sabarloog cusub ma bixinayna, kiisina kama qaadayn. kiisi unbaa waxaan rabnaa si cid kale oo sabarloog been intay soo samaysatay ayna ugu qabsanin inaan u diiwaan gelino qalabka maxay ahayde qof walba uu maaragtay ku furan karo cidna koobiyeyn karin aan ugu samayno. markaas lacag badanna lagamaba qaadayo, fee yar oo dokumentiyadaas looga qaadayo oo safety ammaankiisa uu ku jiro oo lahaanshaha dhulkiisa inaan lagu qabsanin uu ku jirto baa laga qaadaya. qofkii sabarloog haystay oo mid kale oo sabarloog been ah soo abuurtay uu ku qabsado, maxkamadahaan u gudbinaynaa. dhaar baa imaanayso, markhaatiyaal baa imaanayo, yaa deris la ahaan jira lagu aqoon jiray imaanayso. hadba dawladihii hoose wixii kasii nool ragga khabiiriinta ahaayo dawladihii hoose u shaqayn jiray oo odayaal hadda wada joogo inta ay ka garan karaan oo xog ah oo xog ha laga qaadan karaa la samaynayaa. maxkamadahaasa ayagana cidda si xaqa uleh u xukumaysa, cidda documentiga faalsada wadato oo qofka ku qabsatayna banaanka ka marinayso. dhulka oo basiibka loo yaqaano macnaheedu waxa weeyaan dhulkii ay dawladda hore bixinin 30 sanana la degay, kaana qofkii degan baa hadda loo sharciyeynaya say cid kale ugu qabsanin. kii uu ka iibsaday, kii hore u haystay oo cid kale ka xoogtayna waxaa jira form F7 la yidhaahdo oo khilaafaadka guddi baanu qabanay 11 akhyaar ah magaalo walba laga qabanayo oo criteria lagu xulay oo culimada ka mid tahay oo haweenka ka mid yihiin oo ganacsada ka mid tahay oo aqoon-yahanada ka mid yihiin. guddigaas ayaa gartaa gelayo labada qof kii ugu horreeyay booskaas oo qabsaday baa loo xukumaya, kii ka xoogayna waa laga kacinaya. waxaa la leeyahay booskan qof baa hortaa qabsaday ka guur. horta sabarloog cusub waad bixisaan, sababtoo saad ii sheegtay dhul cusub oo dad aad siinaysaan ayaa jira sidaad ii sheegtay. marka haddii aad dhul cusub dad dejinaysaan dabcan sabarloogna waad bixinaysaan cusub. laakiin tan markaan ka hadalno sabarlooga lagu muransan yahay, sabarlooga hore oo aan u cusboonaysiinayno iyo warqad mulkiyad la yidhaahdo oo qofkan inuu dhulkaa leeyahay aan ugu cadaynayno si aan looga qaadanin oo ayna sabarloogii magaci sabarlooga milna waxaan u bixinay warqada mulkiyadda. laakiin ogow qof walba qofka xaq ugu lahaa un baan siinaynaa, qofkii xoogay ma tixgelinayno. qofka ku qabsadana guddiyadaasaa kala saaraya. marka laba qof hadday keensadaan laba sabarloog oy dhul ku doodaan, maadaama aysan jirin meel loo laabto oo laga soo saxo midka xaqa u leh, waxay ku xidhan tahay guddigaasi go-aankay gaadhaan. guddigaa go-aankooduna waa aragtidooda, qofka ay u qiimeeyaan wayna qaldami karaan, soo sax maaha? ser macruufo labaan kugu kala horta laba leyn baan samaynay. dhulka la yidhaahda oo basiibka oo aan hori sharciga u haysanin waxaa xal ka gaarayo cidda leh guddiga xalinta khilaafaadka dhulka oo 12 xubnood oo waxgaradkii magaalada ka kooban oo annaga naga madax banaan. dadka isku qabsada dhulkaan anaalehi sabarloogan u haystaane waxaa go-aan ka gaaraya maxkamadaha oo heerar kala gedisan. matalan haddii maxkamadda degmada gasho ku qanci waaya racfaanku aadaya, racfaanka tuqaaya maxkamadda saraa jirto. maxkamaduhuna cadayntay dadkaas ku kala saarayaan waxay noqonaysaa
hadba dadkii hore ugu shaqayn jiray dawladaha hoose oo haddaba maamulada ka mid ah inta ay ka og yihiin markhaatiyaashii deegaanku qofkaa deganaa wax kastoo baaritaan oo ayaga ku samayn karaan dhaartii ilaahay u baneeyey marka wixii dhul sharci isku qabsadana waa maxkamadaha wixii aan sharci lahayn cid isku qabsadana waa guddiga khilaafaadka weeye labadaba waa laba hay-adood oo dawladda faragelinteeda ka madax banaan markaad sabar looga u samaynaysaan mid ka mida cabashooyinkan soo gaaray waxa weeyaan in mashruucan sabar looga samaynta ama bedelidda sabar looga hore inuu isu bedelayo una eg yahay mashruuc dhaqaalo lagu abuurayo sababtay saa u leeyihiin waxa weeyaan dadka qaar waxay noo sheegeen lacaga aysan awoodi karin in sabar loogada loogu sameeyo adaa ii sheegi kara laakiin dadka qaar waxay gaarsiinayaan $3,000 jawaabtaada doodaas sax ma ahan horta kow dawladu ama nidaam meel ka jiraayo wuxuu xaq u leeyahay inuu dadka u nidaamiyo dhulka maxaa yeelay dhulka ilaahay baa le hadba waxaa mas-uul ka ah maamulkii halkaa ka jiro qof kastoo muwaadin wuxuu xaq u leeyahay inuu helo meel uu dego iyo meel uu tabcada iyo dhul uu wuxuu raba ka samayso marka horta annaga waajib dastuuriya ama waajib bay nagu tahay inaan dadkii u nidaamino dhulka oo siday u kala xoog badan yihiinna u kala qaadan dhibaatana ayna ka abuurmin nabadgelyo xumana ayna ka abuurin midda dakhliga waa mid iyadana aan xaq ugu leenahay maxaa yeelay haddaad dadka dhulka u nidaaminaysid oo dokumentiye samaynaysid oo hay-ado khuseeya waxaynaysid ood amniga hagaajinaysid dadkaaga waa u baahan tahay inay iyagana fee bixiyaan lacagta 3,000 iyo midna maahan ay kuu sheegeen waxa weeyaan cidda sheegtay waa cid propaganda wada waxaan samaynay qiimaha ugu jaban matalan sabarlooga qofka guriga leh oo dhulka 40 lagu dhuftay leh degan waxaa laga yaabaa $200 waxaan gaaraynin in loogu bedelo nidaamkaas oo dhamanka surveyga loo sameeyo waxaa kaloo wadnaa master plankii oo magaaladii waa casriyeynayna dib baan u nidaaminaynaa wadooyin baan ka bixinaynaa dadka weel kastoo waddo laga bixi waad garanaysaa nolol baa ka abuurmayso dukaamadii baa ka furmayo ganacsigii baa ka furmayo dadkii baad arkaysaa inay ishordegeen oo qofkii gurigiisi meel ugu maraba ayna jirin marka fee yar oo kala gegedisan oo biometric ku salaysan baa laga qaadaya dhul qof cusub oo dhul la siinayo sabarloog leh kii loo bedelayo kan oo basiib la siinayo intaba beri dhaweyto markaanu khidmadda dejinay oo aan aragnay inay culays jiro dib bay haddana guddiga intay u fariisteen baanu lacagtii 50% baan haddana tuurnay mas-uuliyiinta Jubbaland waxay ii sheegeen in 80% dhulka la degan yahay ee magaalada Kismaayo lagu tiriyo inuu yahay obasiibo halka 30% kaliya guryaha ay leeyihiin sharciyadii hore maamulku waxay bilaabeen inay bixiyaan sabarloogooyin cusub iyo inay tasdiiqiyaan kuwii hore waxaana dadweynaha laga qaadaa lacago kala duwan oo dadweynaha qaarkood oo danyarta ah isla markaana degan obasiibooyinka ay sheegeen inaysan awoodin xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur Cabdulaahi Dheere waxa uu ka mid yahay baarlamaanka Jubbaland waxaana uu ka qayb galay doodihii ku saabsanaa sharciyada dhulka iyo xalinta khilaafaadka waxa uu ii sheegay in maamulku ay go'aansadeen inay khafiifiyaan lacagaha dadka laga qaado si ay sharci u samaystaan kadib markii ay cabashooyinku bateen dad waxa weeye waa dad sharciya sabarloogadii haystay dhulkii haysta burburkii 20 sannadood hadda burburka ahaa oo lasoo dhaafay soo waddanka aynu soo marnay waxaa jiray dad badan oo iyagu guryahoodii lahaa oo ka dhumay sharcigii matalan dadku waa la qaxay barakac badan baa ka dhacay 20 sano dhulkan lagu dagaalamayo waad ogeed oo baasha buucda u ahayd problemka Soomaaliya bay ahayd meeshii lagu dirirayay marka waxay ahayd dadka dokumentiyadii isagoo gurigiisii garanayo oo dadkii deriska ahaa sheegayaan buusan haddana wax sharciya qofkii uusan u haysan oo dokumentigiisii dhumay maadaama marka aan jirin meel wax la raacay wax la raacay wax la sameeyay in dib loogu sameeyo marka sharciyad sabarlooga loo siiyo qofkii uu soo doonto qofkii doonaya inuu samaysto gurigiisii sharci u samaysto sharciyadiisii iyo wixiisi ay ka dhameeyeen inuu soo doonto uu lambarkiisii sharcigiisii wixiisi la yimaado kabacdina markhaatiyaashiisii dadkii deegaanku markay u cadeeyaan oo la yidhahdo gurigaan isagaa le qofkaan waa hebel waa nooca isagaa dhistay saas oo nooca sharciyadii baa loo samaynaya wax la siinaya sabarloogadii qiimaha marka lagu siinaya waa uu kala difan yahay booska dhulka cusub ama qofka la siinayo oo la siinayo ama qofka si sharci darro ah ku dhistay goobo dawladda oo meelo ku ismanaa saddexdaas qaybood baaba loo kala saaray gurigii dadka lahaayeen oo loo samaynayo qofkii meel dawladeed dhistay oo isaguna sharciyadiisii isaguna loo hawo sharciyeynayo iyo qof oo basiibo dhul banaanaa qabsaday oo dhistay oo aan wax dokumenti u haysan oo isaguna loo sharciyeynayo saddexdaasaa loo kala qaado
lacagaha laga qaadaya haddaan wax yar ku laabto waxaa la ii sheegay sabar looga cusub markii la samaynayo qofka $3,000 in laga qaado haddii dhulka loo cabirayo lacagtu intaas ay ka badan tahay dabcan qofkii sabar looga hore u haystay oo lacagtu intaas way ka yar tahay saan maqlay laakiin lacagtaas lacag aada u badan sooma dadku may awoodaan $3,000. arrintaa waa ka hadalnay waa arrintaan kuu sheegayo weye arrintaa $3,000 horta maaha lacagtu waxaan umalaynayaa booska guriga bervintiga waxaan umalaynayaa meelaha 2,000 iyo xoogaa buu imaanayaa haddii marka sida ay noo sheegeen dadkii waanu ka hadalnay mawalihii ay khusaystay oo hay-adihii ay khusaystay iyo wasiiradii khusaystay iyo ilaahiyo madaxweynihii iyo kulligay baarlamaan waa ka hadalnay arrintaan kuu sheegayo weye oo in dadka culayskaas laga khafiifiyo oo ayan qaadi karin waa aanu gudbinay cabashadoodii dadka idaacadaha iyo telefishinadana waanu ka hadalnay oo sidaasaan u sheegnay annaga bulshada cabashadoodu wayna soo gaartay markiiba dadaan ku dhex noolnahay oo dhinaan mas-uuliyiin unahay anagu haddana wakiiladii waxaanu nahay bulshada ruuxooda waanu gudbinay cabashada waana nala ka aqbalay in la khafiifiyo oo arrintaas dib loogu noqdo oo lacagtaasi ay culus tahay dadka. magaalada muqdisho oo kale 75% kiisaska la hor keena maxkamadaha waxay ku salaysan yihiin muranada dhulka. khubarada dhulku waxay ii sheegeen in magaalooyin badan oo ku yaala Soomaaliya ay taasi kala siman yihiin caasimadda magaalada Muqdisho sida Kismaayo oo kale. mid ka mid ah magaalooyinka laga cabsi qabo inay ka dhacaan muranada dhulka ee ugu culus waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo oo dhul badan oo magaaladaasi ku yaala ay hore u lahaayeen militariga Soomaaliya. dhulkaasi oo sanadihii ugu dambeeyay ay degaan rasmi ah ka dhigteen dadweynaha caadiga ah ee magaalada. mas-uuliyiinta magaalada Baydhabo waxay galka baarista u sheegeen in 95% dhulka Baydhabo aanay lahayn dokumenti tixraacna aanu jirin. waxaa intaasi dheer in xilligan magaalada Baydhabo aysan lahayn hay-ad dhulbixineed waxaana kiisaska dhulka iyo muranada xalintooda maamula nootayooyinka oo aqoonsi ka haysta maxkamadaha magaalada. nootayooyinka sameeya sugnaanshaha dhulka Baydhabo waxaa ugu weyn nootayada Xaqsoor waxaana maamula Dr. Xuseen Iskow Xuseen. qofka ama dhulka loo sugaayo waa inuu ugu yaraan 3 qof oo la garanayo oo antama guurtaan leh oo magaalada inuu dhulkaas inuu leeyahay u xaqiijiso markhaati 3 aan ka yareen la helo dhulkii la tago la soo cabaro dadkii deriska xog la weydiiyo waxay marka isku raaceen qofka uu leeyahay wax barbaleen aan ka taagnayn oo dhulkaas shakhsiyadiis uu leeyahay ama dhul oo milki aan ku soo gaaray ama uu gatay ama si uu ku yeeshay ay si cadeeyaan kadib loo sameeyo documenti markaas documentigaas si wada jira loo sameeyo documenti kaliya nootay Xaqsoor ay sameeyaan waa barnaamij oo guud oo si magaalada mustaqbalka loo badbaadiyo ay tahay maadaama dad badan ay ku nool yihiin oo dhulkii aan documenti aan lahayn. waxaad iga warantaa dhulkii militariga uu lahaa maxaa ku dhacay? dhulkii militariga magaalada waa inta ugu badan hadda la degan yahay waa dhul iska furnaa ama dhul oo military lahaa waa marka maadaama magaalo military ahaan jirtay badanaa waa la degay dhulkaas waa iyo dhulkii wasaaradaha ay lahaan jireen iyo maadaama guryo sare laga wada dhistay waa la wada degay marka wax banaan oo hadda oo dawladdu madax banaan waa yar yihiin marka laga reebo elboorka ay wax oo yar oo ku wareegsan ahane dhulkii ugu badnaa oo iska banaana oo military ay lahaan jireen waa la degay deegaan waa. marka maxaad ka yeelaysaan dhulka dawladeed ee la degay? dhulkaas waa hadda marka nootay Xaqsoor iyo maamulka degmada iyo maxkamada ay ka wada hadlayaan waxaa la yiri inta ugu badan dhulkaas waa la bixin doonaa sida ay u badan maadaama oo military magaalada dhexdeeda aan soo gari karin meeshaan waa dad badan ay sii degeen marka wixii oo basiiba ana si gaar ah loola macaamilo wixii dhul caadi ahana si kale loola macaamilo laakiin barnaamij la isku ogsoon yahay marka wax yar ay deebi doontaa dawladda inta ugu badan dhulka in la bixin doono ama la isku afgartay haddii aan wax ka bedelin madaxweynaha cusub imaan doono haddii aan wax ka bedelin waa barnaamij oo muddo 2 sano la soo waday oo budget ahaa oo marka barnaamijkaas oo wax badan la iska kaashtay oo ilmaadiinka wax lagu weydiiyey oo malaaqyadii wax lagu weydiiyey oo dadkii kale siyaasiyiinta iyo ganacsatada wax lagu weydiiyey haddii kale magaaladii oo basiiba laga guuraa hadii la waa 70% ama 80 magaalo waa laga guuraa. marka dadka hadda degan baa loo sharciyeyn doonaa saas aan gartay? dadka hadda degan loo sharciyeyn doonaa marka dawladda hoose awood u leh inay wax ka qaado ama si toos ay u siiso marka waa sharci guud oo loo sameyn doono waa. intuu leeyahay dhulkaasi baaxad ahaan? dhulka hadda waa magaalada horta magaalo weyn ay noqotay marka sidii waagi hore ma magaalo ballaaran waay marka dhinacyo badan ay gaartay marka waa hadda dhul oo la qiyaasi kara hadda magaalada adi 70% gadaal ama in ka badanaa la degay marka 50% ugu yaraan waa dhul oo basiibo u badnaa waay oo basiibooyinkana way kala yihiin marka dhul iska banaanaa
oo waxba aan ku dhisnayn iyo dhul wax ku dhisnaayeen waa marka intii wax ku dhisnaan badanaa way badbaadeen laakiin intii aan wax ku dhisnayn oo kuwa la degay waa okay waxaad wax yar iga sheegtaa marka isqaqabsiga aad ka hadashay maxaa ugu badan oo dadku isku haystaan waxa ugu badan ay isku haystaan dhulka waaye dhulka markaa qofna horey u joogay mid kale hadduu yimid marka isqabsadaana marka wax lagu kala saari kara ma laha marka waxay u badan tahay waa sida soomaalida ay dhaha ku qadimaysi bay u badan tahay marka maxkamadiina badanaa go-aan kama gaari karaan laakiin guddoomiyaha maxkamad sare markuu yimid hadda wax badan uu ka bedelay marka guddi oo waxaa jiro oo dhulka loo xilsaaray oo dadkii hore magaalo si fiican u aqoon jiraa jiro marka madaxweyne cusub oo imaan doonana waxaan ka rajaynayna inuu arrintan wax badan uu ka qaban doono magaalaha haddii wax laga qaban isqabqabsigeedana ma dhamaanayo marka sharcina ma lahan dhulkii marka waa barbalenkeed waa inta ugu badan bay dhibkeeda waa dhul le wa adiga maadaama nootayada aad joogto toddobaadkii ama bishii oo kale imise kiis ama guri ama boos oo lagu muransan yahay baad aragtaa oo kusoo marta aniga inta meesha aan joogto toddobaadkii adii waa inta ay soo marto oo warqadahan u sameyno siyaasha maxkamada ay u wataan maadaama anaga meel nootaaya wax lagu qora ay tahay marka toddobaadkii 10 20 5 marmar way kala duwan yihiin laakiin maalin kasto maxkamada dadka kama dhamaada maalin kasta marka maxkamada aad tagtid dad way joogaan inta ugu badan la isku haystana wax kale uma badna waa dhul le waa inta la isku haysto oo magaalada la isku qabqabsado oo maalin kasta laga wadaala inta maxkamada la geeyo inta banaanka lagu hadlinaya ka badan guryuhu ma qaaliyoobeen markaad guryaha hadda gurigii 20 20 mitir dhinac walba ah imisaa la siiyaa 10 sano ama 20 sano ka hor imisoo ahaa ama xilligiisii aad bare waa guryaha baydhabo hadda marka la fiiriyo magaalooyin badan ay ka qaalisan tahay magaalada xamar marka laga reebo magaalada faras magaalaha iyadaa ka qaalisan marka magaalada hadda kuwa guryaha 20 ma ahana kuwa kale xataa qolalka yar yar oo magaalada 5 mitir ama 4 mitirka 100,000 ku dhawaad kala gato marka meelaha deegaankana haddii dhulka oo aan fogeyn oo magaalada ku dhow yahay 100,000 50,000 marba 30,000 20,000 sida istaraatiiji u yahay iyo wadooyinka uu saaran yahay saas oo kale waa marka magaala dhulkaas aad qaali u yahay waa marka magaalooyinka kale u fiiriso marka magaalooyinka kale way ka duwan tahay maadaama oo dadkan reer koonfurkan ay u badan yihiin magaalada maalgashi badan iyo dhaqaale badan ay geliyaan marka dhulkeeda qaali waa marka hadda 10 sano ka hor dhulkii waxba aan joogin oo aan la rabin hadda waxaa laga yaabaa inuu booska uu joogo 20,000 30,000 uu joogo marka wax badan isbedelaa jiro magaalo kale oo ay ku badan yihiin xeryaha militariga oo ay haatan dad badan degeen isla markaana sii fidaysa waa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Dhuusamareeb waxay kaga duwan tahay Kismaayo iyo Baydhabo waxay leedahay diiwaan ay ku qoran yihiin lahaanshaha dhulka oo ay qortay dawladdii hore ee Maxamed Siyaad Barre. Dokumentiyadaasi oo ay badbaadiyeen muwaadiniin magaalada ka soo jeeda. inkastoo maamulka Galmudug uu ansixiyay sharciga dhulka haddana maamulka magaalada Dhuusamareeb weli ma aysan bilaabin bixinta sabarloogooyinka. Xasan Tahliil Cusmaan waa xogayaha dawladda hoose ee magaalada Dhuusamareeb. diiwaan yar maahan ilaa 800,000 meelahaas camal oo qoysa ku jirta kullay dhulkii cabirka ahaa oo saxda ahaa xilligii Talyaaniga wixii ka dambeeyay oo dhan baa ku jira laakiin xilligii Talyaaniga kuwa waxaa jira baalka sabarloogooda oo Talyaani yahay laakiin ayagana aqoon dadkii hore oo yaqaaneen magaalada qaar badan baa ku dambeeya qaybtii dhulbixintii oo kala joogta dhulkaanu saas ayuu ahaa jiray iyaga yiraahdo looga dambeeya sabarloogoodu maadaama uu Talyaani ku qoran yahay haddana barnaamijka dhulku waxaad moodaa xoogaa xalkiisu wuu soo fiicnaanayaa laakiin ayaantii hore aad iyo aad baa loogu waashay maadaama magaalada hal mar inta dawladdii Galmudug iyo maamulkii ka jiray meesha inta la isku daray wixii dhamaa dadkii iftiin u soo baxay qof walba waa soo orday iyadoo dhulkeeda meel ku yaalay aan xataa xaqiiqo u hayn sabarloogna aan wadinay jiray meesha aan deganaa jirnay ayaantii hore waa la isku wareeray laakiin hadda xoogaa halka dhulku waa noo dhawaaday dhulkii hore oo xilligii dawladdii la baxshayna dadkii say u badan yihiin dhulkooda way aqoonsadeen waa heleen warqado cadaynana way heleen midka dambe oo dawladdii ka bacdi la degayna waxaan rabnaa nidaam iyo system balance u samayno oo wadooyin fiican ka bixino oo bilicda caasimadul haajirka ka abuurno markaan ka bacdina ayagana u sharciyeyno sabarloog siinaan rabnaa insha Allah. haddii marka sabarloog aad u soo saartaan qof tusaale ahaan dhul aad siisaan ama uu iibsadaba laakiin sharcigii loo soo saaro oo uu yimaado qof kale oo sheeganaya dhulka maxaad ku kala saaraysaa horta waxaaba muhiimadu tahayba dhulku waa dhow hadda lagu haystaa dhul aan xaqiijin lahayn
oo aan baaris inta lagu sameeyo xaqiijin fiican lagu samayn annagu horta maba sii haynaba sharci sii mayno nootayaanu dirayna soo baaraan leenahay barnaamijkaas kiiska daba kaca kiiska maray daba kacdo nootayadu ay soo xaqiijido waxaas nidaamkiisa soo saxdo kabacdi dawladda hoose safarlooga inay sida way ku qasbanaana laakiin dhulkii la baxshay oo hore oo dhan waaba haynaaba faylo noogu jira waaye waxaad marka tusaale iga siisaa waxaad tiri intuusan maamulku iman dhibaatooyin baa jiray oo waa laisku wareeray hal iyo laba iga sii waxyaabihii dhacay kiisaska dhacay iyo kuwa aad xaliseen hadday jiraan iyo kuwa aydinaan xalinba si bal cashir looga qaato horta dad meeshaan xilligii burburkii dadka soo u badan yahay waa lagu kala qaxay markii lagu kala qaxay oo qolo walbaa meel u qaxday dad aan soo laabanaa jira oon dibba usoo laabanba dhulkoodii marka dhul banaan uba iska ahaaba xilligii dawladdii dhexana sabarloogyada dhulka waxaa dadka ugu oolin jirtay 6 bilood qofkii aan ku dhisan inuu ka milki guurayo dhulkaas oo sidii la rabo loo isticmaali karo marka dhulkii oo banaana dawladdii dhacday dawladdii markay dhacday qofkaanu sabarloogii uu la qaxay ama waaba ka gustay oo gurigii ku gustay way iska tageen qof kasta huba markii la yidhi meeshii dawlad goboleedkii galmudug caasimadiiyaa meesha laga dhigay dhulkeedu wuu qaaliyoobayaa haddii ilaahayba kuu samoogol yahay maadaama dhulkeeda uu qaaliyoobayo meesha waxayba noqotaba qofkii boos ku laheed oo dhan waa iska soo xaadiriday dhinka wuxuu marka dadaa guryo dhisan oo la yaqaano sabarloogyalaho ilaa dawladdii maxaa siyaad barra dhisnaaya dad inta yimaadeen oo faraha ku taagsiinay dhaan annaga iska lahaa jirnay kabacdi baaris badanaa la sameeyey dadkuna maba ku baraarugsanaynba in la hayo diiwaankii dhulka dhulbixinta waaxda dhulbixinta xilligii dawladdii dhexe ay wax ku qori jirtay in la hayo maba aysanba ku xisaabtamayn lamaba soconba sabarloog la-aanna waa ku yimaadeen marka isqaqabsi badan oo xagga dhulka aha yimid taasoo ku saabsanaa in aqoon la-aan aan qof walba habaysa dhulkeedii aqoon cadaynkii bayinadiina aysan haysan oo aysan haysan warqadii cadaynaysa sabarlooga dawladdii dhexasiiday qof walbaaba watooyinka sheegaysay deriska sheegayda jaakasta wixii ka xiga sheegaysay ayadoon qof kasta huba aysan haysan ay timid kumana baraarugsanayn in faylkii yaallo waxaa dhacday marka iska qabsi badan oo xagga dhulka qof walba meeshaana lahaa jiray waana iska dani mala waaye marka adugu ayaantaas arrintaasaa timid kabacdina dibaa loo baaray qofkii heer waxaan gaarnay guddi inta u samaynay la yidhaahdo guddiga dib u habeynta sharciyada dhulalka oo waaxda dhulbixinta hoostaga inta loo magacaabay guddigaas ay soo baareen dhulkii oo qolo walbaba la yidhi soo baara dhulka qof kasta oo tiraahdo dhul sheegata iyaga loo diro oo ay markaas inta guddigaa u tagaan guddigaas usoo baaraan hadday dhul leeyihiin iyo haddaysa dhul lahaynba qof walbaa dhulkeeda meeshuu uu ku yaalay markaa kabacdi inta lagu daro cabirayaal la geeyo la yidhaha dhulkaaga halkaan u ahaay cabirkiisa kuu qorana intaanu leegya loo cabiro intaas ayaan kabacdi xalkeeda ku gaarnay marka barnaamijkaas maxkamadii iyo guddigaas iyo dawladdii hoose iyo booliska wada shaqeeyaya wixii dhamaa waxay noqdeen markii dambe wax iska soo xalismayba hadda markaad hawsha cusub bilowdaan qofka sabarlooga cusub oo buuxda loo soo saarayo maxaa laga qaadi doonaa kolley waad kasii fikirteen kolley qaymaha hadda ka hor aan ka shaqaynay qaymaha hadda saa u badan maba ahaynba qofkii dhulkiisa dhulkiisa la baaro sabarlooga hore uga lumay ee sabarloog cusub loo samaynayo qadar yaroo adugu markay na loogu badato $40 camal ah aa la rabaa in laga qaado qarasha waaweyn laga qaadi maayo $40 oo qoraalkaas un dadka waxa wax qoraya iyo wax yaroo qasnada ku dhacayo oo noocaas camal ah iyo qoradan qoraysa wax yaray ka qaadayaan oo kaatimiinta oo wax qoraysa unbaa laga qaada $40 anagu ku qaymayna markii hore welina lama bilaabin wax laga bedeli doonana lama yaqaano iyo wax lagu kordhi doono wax laga dhimi doono midna dhinaca kalena maamul goboleedka puntland ayaa shalay soo saaray amar lagu joojinayo dhammaan dhismayaasha sharci darrada ah ee lagu sameeyo dhulka ay dawladdu leedahay su-aashuse waxay tahay sidee ayaa maamulada soomaalidu ay u xallin doonaan dhulalkii dadweynaha ee 10 sano ee lasoo dhaafay ay degeen dad rayid ah kuwaasi oo lasii kala iibsaday gacmo kala duwanna maray